YouTube xarwana horumar inay ka gaaro laba video markaas oo dhigay dadka waxay dhahaan uma qalantid YouTube iska dhaaf sax hakuni wayna jibeen sax anina xaraba ina horumar ka gaaro rajadeyda oo ahayd heer saro ugu dambeyn maanta way lunta waxa sidaas yiri Bashiir Gaab oo ila fadhiya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قالي قاعدة مانتين هديت بدين سلامية كسر وهذا مركزية channel كيجا عندنا شو وعاك حسوسين يا هدي channel كيجا كل عصوب تهاي مركزي كوجو رئيسية فيديو كيجا دعوانا يسو أما بعد هوري إلى سعودي لكن أنا channel كيجا ولي سبسكرايب سارين إن الحلقة كله فتيد أو channel كيجا سبسكرايب سارتيد فيديو كنا لايك سارتيد أديت بعضهم معصن طيب إن شاء الله ما توقع رياكشن كبيحين دونا أما وحيله جدبنا كأوران دونا فيديو كقيبتي سهرة صوت دعوتي oo ku socda wiil dhalinyaro Soomaali ah oo lahaa hami in YouTube ka horumar ka gaaro balse hamigiisaas ay jabiyeen qaar kamid ah dadka isaga ku xeeran oo u sheegay in aanu YouTube ka horumar ka gaari karin marka balaasad daawana qayb kamid ah videoga YouTube xarwana horumar inay ka gaaro laba video markaas oo dhigay dadka waxay dhahaan uma qalantid YouTube iska dhaaf sax hakuni wayna jibeen sax anina xaraba ina horumar ka gaaro rajadeyda oo ahayd heer saro ugu dambeyn maanta way lunta waxa sidaas yiri Bashiir Gaab oo ila fadhiya kaas oo ka sheekeyn doona sheeko ku dhacday taas oo ku saabsan hami aad u sareeyay oo lahaa YouTube uu sameystay gabi ahaanba laga niyadjibiyay hadda maal YouTube iska dhaaf la ma ka haween oo ku soo wacayta sax iska dhaaf in dadka sax iska dhaaf firugo ada dhahda iska dhaaf markii aan soo ogaaday sheekada Bashiir iyo sidoo kale xaaladiisana waxaan go'aansaday gabi ahaanba in bandhiga production uu qayb ka noqdo marka aad barataan ee si fiican aad isku barataan uu isaga YouTube u gooniya yeelan doono hamigii iyo himiladii uu lahaana uu gaari doono sheekada Bashiir ayaan rabaa inaan dabcan sii guda galo waa sida uu sheegay Bashiir Gaab oo maanta bandhiga production martino ugu isla markaana aan dabcan su'aalo badan oo weydiin doono sidoo kale Bashiir waxa uu qayb ka noqon doonaa team bandhiga production iyo sidoo kale saaxiibada waxaana uu sheegi doonaa sida uu arko inuu halkan ku soo biiro iyo wax badan noloshiisa ka bedelo marka isaga ayaan idin kaga dhex bixi doonaa waa Bashiir Gaab iyo sidoo kale barnaamijkeena soo dhaweynta Bashiir soo dhaw wadhawahay asxaabta bandhiga production hay'bal ka waraniyo arta xaaladdu waa sidee xaaladdu caadi waa joogo iska nabadmo bal ka waran haye Bashiir waxay leeyihiin dadka maanta wiil yar soo fadhiisay barnaamijka kala qayb galay haye dadka waxa leedahay wasbaranina bandhiga production asxaabta صح Bashiir waxa ay sheegtay markii hore in horta waxaad ogaataa wax kasta oo rabtid inaad bilowdo ama aad ku haminaysid inay jiraan dad kaaga soo horjeedsanaya balse muhiimadu ma aha inaad qiimeyso ama aad muhiimad siiso fikirrada dadka adiga ka soo horjeeda YouTube aad samaysatay oo jiray barnaamijyo waxyaabo aad soo galgelisay markii aad barnaamijyo bilowday inaad sameysana hadallo oo niyad jab runtii oo aan qaarkood ku wanaagsanin aan la kulanta bal ii faahfaahay maxay ahaayeen dadka bulshadaada dadka ku daawanaya ee si toos ah ku daawanaya bal uga sheekay taariikhdii inaad YouTube macna ka sameyso laakiin dadka qaar ku niyad jibiyeen YouTube xarwana horumar inay ka gaaro laba video markaas oo dhigay dadka waxay dhahaan uma qalantid YouTube iska dhaaf sax hakuni wayna jibeen sax anina xaraba ina horumar ka gaaro sax marka hadallada ku dheer oo kale maxaa kamid ahaa iska dhaaf YouTube oga sax iyo YouTube aad uma qalantid oo kale marka maxaa ugu qalmeeyay dadku ku leeyihiin marka waa yarta cunug yar oo qofku fiirsada wala sax midda labaad wiilkii imka halkan idin ka muuqda ma aha ilmo yar laakiin abuurta Ilaahay u sameeyay ayaa sidaas ah macnaha dadka qaar waa dhaadheer yihiin dadka qaarna waa dhexdhexaad dadka qaarna waa gaagaaban yihiin markaas ninkan waa dadka gaagaaban laakiin inaadan yarayn dadku sheeg kale ya sidoo kale waxaan hadda xasuustay sidoo kale wiilkan maruu soo fuulay stage isagoo doonaya inuu ka dhinac ciyaaro fanaanad hees qaadaysay fanaanada hadda ma xasuusto ayaa ina kamid ah hablihii ka dhinac ciyaarayay fanaanada stage ka saarnaa waxay isku dayday inay qaado iyadoo u malaynaysa inuu ilmo yar yahay marka wili dadka waxay dadka qaar ku maleeyaan inaan yartaa Bashiir maxaa leedahay markaad
aniga waa arki doontiin inaa yareen hadaladii arkaysiin sax hadaladeeda iyo sheekadeeda alla dhici doontaana leedahay cunug yar inta meel suru fadhiisa ma hadlaayo ooyaa waa cararaa waa wadboodaa sax laakiin ninka weyna deganaan waa hadda ana mala celceliyaya may caada u sheekeynaysaa bashiir inta aan nooleed sidoo kale sheekooyinka ka waran waxyaabihii kugu dhacay layaabka badnaay oo aad magaalada adoo joogto aad la kulanta maxaa kamid ahaa sheeko layaab ma iga sheekeyn kartaa hadda markaa aada soo socda wadada xataa ilmayara ay dhigay maxay ku leeyihiin weli dhigaalaya cunug yar inta marooy cunug yar marka ilmaha sheekada bal iyo sheeko xiiso badan waaye maxaa isleedahay ilmaha marka maxay ku leeyihiin ilmaha xaafadda la kuwa la istabisle gumugii hada xataa ilmaha ay dhaleen way la ciyaaraan inay wari ku intaay ficil martii dhiga la xidhaan iyo badana sheekadaas iga sii sheekay dhacdo kale oo kugu dhacda ma jirtaa oo intaad magaalada joogtay bashiir sidoo kale dadka waxay isleeyihiin ninka waa nin weyn oo nin odaye shukaansi iyo waxyaaba ma galaa haye horta ninka odayga taleefankiisa waa kanaa lambarkiisa waxaa waaye qofti rabto waa nala soo xiriirta mafaande waxaa waaye weliba anaga nin raga ma siinayna gabdhaha waaye codsi waxaa waaye qofta soo dhiibato dhammaan waa soo dhaweynayna laakiin waa codsiga in gabadha inay maraykanka joogto haye anaga naagba soomaaliya joogta ninka odayga ma rabi waa soo codsigiisa waxaa waaye naagta codsi gabadha codsi soo dhiibanayso waa inay maraykanka joogtaa ay bal sheekooyinka kale kugu dhacay iga sheekay kenya ana ka imaaday iskuulka kenya dhiga jiray sax ilmaha hataa waqti waxaa gaaray hataa galaaska iska dhex fadhiya haddaa soo baxo loo dhadhigaya micnaha sababtu le waa laygu dhigdhigayay maadaamuu dadka isagu ka duwan yahay oo ardayda kale uu ka gaaban yahay sidaa daraaddeed ayuu galaaska uga soo bixi jirin marka sheekooyinka xiisaha badnaayoo kale maxaa ka mid ah oo kale mar walba waa wiil walaalana la isla socon jirnaa sax marka galaaska inaad dhex fadhido maxaa kugu qasbaya markaas hadda banaanka soo wax ma socon kari jaam ay noqonaa sax dadkan waa kaana dheeriyiin weli dad oo tusaale hadda muuqaalo waxaa jirta mararka qaar haddaa aad daawato in kale ma ogi wiil meel xaflada joogo hees fanaan hees qaadaya ag taagan gabar imaanaysa waa xambaare waxyaaba noocaas weli ma kugu dhaceen oo in qof yar lagu mareyso si lagu xambaaro kale أنا بالشيء مش عابد لجوجا. صح. مرك حافظ محا مر بقى وجوكتا مرك. حافظ جوت محين. مدتك ومقالة جوجا حوجا معناها لبستي محا حافظ جوكتا. همني مولي هبو أنا بناك بحر ما هو لا قاعد يجرس بناك. صح مرك هوري. مرك هذا ما يش أجوكتو كله عيالك دقينو كله. مرك قار شيء كوين قبل مقالة كلها انتهى. meesha jooga dhibwa waxay iga sheekay bal waxay iga sheegi kartaa waxyaabo oo fanni ah oo inta joogta ciyaalka ay ku maleeyeen nin yar ay kugu la kaftamayaan ama ay kugu dhibayaan wax badan ay u dhawaayo is dagaalna ascinjeesana is fiirna sax laakiin hadda nin waa ka wintay ama ilmaha qorsaysan iyo marka meel xun ku dhuftay arkaabo sax iyo farta saa u qabtay wax weyn ku dhuftay sax waa naxariistaa waxa maskax ahaan ku dhuftay waa fikraysi sidoo kale marka aad dib ugu soo laabano noloshaadii YouTube hadaladii ugu saameynta badnaa ee aad dabcan niyadda ay kula xanuunta maxaa kamid ah oo lagu dhaay hadda maalin YouTube iska dhaaf leeyahay ma ka habeen ku soo wacayta sax iska dhaaf dadka sax iska dhaaf firugo ana dhahda iska dhaafin ma ya iska dhaafta hadda nin waxa tahay talent leh boqolaal kun oo hadda muuqaalkan daawaday iyo kuwa kale oo daawan doonaba waxay aaminsan yihiin wax badan soo kordhin doonto team bandhiga marka ka mid noqoto daawadayaasha waxay idin sheegi doonaa hadii Bashiir dabcan isbedel badan ay isaga ku yimaadaan waxa idin soo gudbinaynaa YouTube isagu leeyahay qaasna waa waxa rabnaa inaan ka dhabayno rajadii la jibiyay ee la dumiyay gabi ahaan inaan soo nooleeyno isla markaana Bashiir YouTube isagu leeyahay 100,000 oo subscribe aan helno insha Allah laakiin hadda ma ahan waa marka si fiican isku baranay ana waxa rabnaa marka Bashiir si fiican isku barano oo team noqotaan adinkii waxa rabaa in Bashiir dadka daawaday Bashiir inaad saaxiibadiisa noqotaan bandhiga production waa meel dabcan aan isleeyahay kulay Bashiir dadkiisa way joogan halkaas marka ay sheekadeenu si fiican iskugu dhalaashan waxa rabnaa inaad meeshaadii ka soo sheekayso aad tiraahdo anigu nin way baan ahay ilmo biyahay u ciyaarin sidoo kale Bashiiro ma jiraan dad YouTuber ah marka la eego oo ku dayato Soomaalida ah ama kuwa caalamka ah oo badan daawato sida ayaga camal aan noqoto arjayis hadda saxajiyo la socdaa mar walba barnaamij soo dhigay qofka koowaad bas saxajiyo dadkiisa qofka koowaad oo daawada sax yaa kale marka oo muuqaaladooda daawata oo ayaga camal aan noqoto arjaynaysa
dad badan si bandhiga production صح bandhiga production waa YouTube kaagii YouTube kale oo aad uga xirantaa ma jiraan oo kale inaad ayagana aad u daawato dadku ay koox kugu noqdaan oo kooxdaas aad daawato dadkan badan wiilasha dhalinyarada oo Malaysia joogo kale aad u daawata ayagana marka laakiin YouTuber oo si gooniya ugu dayato uu noqonayo asxaajiyo kale asxaajiyo ku daytaa asaga camal inaa gaartay asiga muddo bil camal oo 70 kun subscribe ku gaaray ka waran hamigaas ma sii rajeynaysaa bil iska asbuucina ku gaararaabo asbuucina ku gaarto horta wallahi wiilkan rajadiisu ma xuma aad u maasan tahay dabcan waayahay marka hadda team bandhiga ka mid noqotay asxaabta maxaa soo gudbin doontaa waxalba ay ka socodsadaan commentiga soo gudbinaa commentiga may waxyaabo oo sidoo kale commentiga waa akhrin doonaa laakiin waxyaabo oo sida hamigaaga oo kale niyadaada ku jiro oo aad isleeyahay mar ayaad bulshada u soo bandhigi doontaa maxaa isleedahay waa ka mid noqon karaan horta muhiimaddu waxay tahay midda koowaad inaad adigu hami leedahay midda labaadna inaad dadaal la timaadid haddii aad labadaas samaysid hamigaaga waad ka gaaraysaa insha allah laakiin bulshadeena Soomaaliyeed xaqiiqatan marka runta laga hadlayo waa bulsho u samaysan inay ka soo horjeestaan qof kasta oo iyaga kamid ah raban in horumar gaadho insha Allah waxaan rajaynayaa in xanuunka Soomaalidu ka dawoobi doonto marka halkaas maanta ku joojinaynaa haddii aad video-ga ilaa halkan soo gaadhay waxaan ka codsanayaa inaad video like saartid channel-kana subscribe saartid aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidoo kale waxaan ku xasuusinayaa ama doonayaa inaan kuu sheego inaan leeyahay channel kale oo ay ku qoran tahay Cadnaan Show 1 insha Allah description-ka hoosan soo dhigi doonaa channel-kaas waxaan soo dhigay video-yo cusub marka ku dhufo soo daawo video-yadaas aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa inooyo video-ga ku xiga aad baan idin salaamayaa